waxaa hergabagabaha soo gaaray tartanka kubadda kolayga degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir kaasoo si xiiso loogu soconaya garoonka Wiish ee degmada Cabdicasiis. Tartanka ayaa waxaa isugu soo haray ilaa iyo 4 degmo oo kala ah Howlwadaag, Shibis, Yaaqshiid iyo degmada lagu magacaabo Hodan oo ka mid ah kuwa ugu adag isla markaana aad loogu saadaalinaya tartankan intuuna bilaaban. Dhinacyada ku hardami doona wareegga semifinaalka ayaa xilligan wada diyaar garow aad u xooggan. waxaan booqnay garoonka Wiish oo ay tababar ku sameynayeen ciyaartooyda degmada Howlwadaag kuwa isku diyaarinaya kulanka adag ay la ciyaari doonaan dhigooda Shibis. wajiyada xidigaha degmada Howlwadaag ayaa laga dareemayay farxad aad u weyn maadaama ay soo badiyeen dhammaan kulamadii ay ciyaareen tani markii uu bilaabo tartankan. Cabdiqaadir Xasan Maxamed Bukur oo ah tababaraha degmada Howlwadaag ayaa wax ka weydiiyay diyaar garowgooda iyo kulanka adag ee ku soo wajahan oo ay la ciyaari doonaan degmada Shibis. tababarkeena si fiican u socdaa aadaan u tababaranaynaa akhladaadkii aan galnay kulankii u dambeeyay oo Cabdicasiis aadaan u saxnay insha Allah waxaan rajaynaynaa kulanka Cabdicasiis inaan la imaano banooni dhaqaaq iyo dhiibitaan ku dhisan iyo dhalis fiican insha Allah. niyo kulanka Shibis wuxuu nooga dawan yahay kulamadii hore waa kulan horta semi final guul 4 kulan oo xiriir soo guuleysanay kulankaana kulamadii hore waxa nooga duwan yahay horta oo basketball ahaan ma jiro qadiyad gooni nagu ma jirto oo kaliya hadda waxa noo cad in oo aan dhaminayno final inaan dhaminayno oo final uu noo muuqdo naadiga Shibis insha Allah waxaan rajaynaynaa kulankan inaan ka guuleysano si aan shaqadeena aan soo afjarno oo finalkiina u tiigsano. Shibis ciyaartoy fiican waa macallin fiican oo saaxiibo aan Faarax isku tiim aan ahayn oo wada naadi kubad fiican ciyaaraya waa dhalinyaro waay sidoo kale anagana kubad fiican ciyaarayna dhalinyarona waa wadanaa waxaan rajaynaynaa in ciyaartaas aan guul helno maadaama hadda naadiga oo Shibis kulanka u dambeeyay soo raayeen anagana kulanka u dambeeyay soo badinay insha Allah waxaan rajaynayaa kulankaas inaan ka badino kulli hadda wax oo anaankooda ka dhigi karo ma jiro basketball game ka hor kama duuno waa just a game waaye waan ciyaaraynaa if we lose we lose if we win we win insha Allah waxaan rajaynaynaa laakiin 100% inaan awoodeen ugu fiican wax hub ka ahaysan inaan la imaan gamekaas noqonin sidii dadka ay u maleeyaan inoo noqonin oo noqdo game natiijo ka duwan natiijooyinka dadka ay filayaan insha Allah ka soo baxo. Cabdullaahi Cabdiweli Maxamed iyo Maxamed Xasan Roble oo ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan degmada Howlwadaag ayaa iyaguna la hadlay telefishinka Ciyaar Bile. wallahi aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan ugu soo gudbin semifinalka qof walba uu semifinal doomaado waa guul dareysana ma dhahayo wuxuu rabaa inuu guuleysto wax walba xaq Ilaahay ka qoran yihiin anaga booto ma arkino iyo booto iyo waxas ma naqaano garoonka wixii la kulnaa leenahay mana booteynayno waxa leenahay wixii Ilaahay noo qoraa qaadanayna iyo calafkeena wixii anaga ma cabsanayno qof walba banooniga oo yaqaan garoonka la imaanaa qof midiyeysta mala meeshan qof kasta banooniga oo yaqaan oo la imaanaa banoonigooda hal imaan banoonigeena la imaanayna wixii aakal cunay leeyihiin wallahi kulankan kulamada hore wuxuu noo kala duwan yahay kulankan haddii aan ka badiyo waxa ka harnay finalkii anagu u jeednaa harnay hadaa badanna finalkii aan Soomahan waxa alaasun oo kulamada kale noogu duwan yahay guul ay idin leeyahay taageerayaasheena meel kasta aad joogtaan waan idin suugaynaa kulanka Arbacada. tababarkan asmeena waa waqti qoraxda kulashay waxaan rajaynayaa guushada inaan ka mar dadaalkaas horta Shibis anagu degmada Hodan ahaan oo xafaarta nagala dhaxeeyo waxaan rajaynayaa inaan ka badino final ku gudbino insha Allah. wallahi wax macna ma sameynayso muhiimadu waa inaan kubadda ku barto degmada Hodan hadina ku dhiilay degmada Howlwadaag wax macna ma laha anaga ciyaartooy isku kalsoonaanahay oo isku xiran oo hal degmo ka wada imaado hal xaafid ka wada soo kacay waxaanu sheegay ma laha iyagan waxaan rajaynayaa taageerayaasha Howlwadaag inay garoonka yimaadaan maalinta Arbacada waxaan rajaynaynaa guul insha Allah. kulankan ayaa mid aad u xiiso badan waxaana qabsoomi doonaa maalinta bari oo Arbaca iyadoo degmada Howlwadaag ay sameysay tababarkeedii ugu dambeeyay oo ku aadan kulankaas maadaama dhinacyadan ay ku hardami doonaan kulan aad u xiiso badan isla markaana ka mid ah ciyaaraha ugu adag ee laga rajaynayo in tartanka kubadda kolayga degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir ay ka qabsoomaan. wadajir Yaakobkan difaacanaysa waana laga reebay hadda heerka afardhamaadka ayuu soo gaaray degmooyinka Shibis iyo Howlwadaag oo maalinta bari ciyaari doona ayaa degmadii badisa waxay iska xaadirin doontaa kama dambaysta tartanka.